بسم الله الرحمن الرحيم لوهذا بوجي أنا هراء البلان قادني قيبتي سكوات وحنا كبلابنا قيبت كوات سيدتان وحن سفر جابن كوي من مجال لندن عريق إنجليز أنا جو الصعدة كقيب قادة شذا حفلة أراس أو أهل كيجا سد عشمركي أنجوي أيو إلى صوها اللينين كترسن أور كمدة كوا سيدا قرصودي دا وشقيو وحنا يقول بلمي مقاهي عن كا مجال لندن كنا تالا صوت كينغستون أو لوير أو ليدا هذا Gallis Bakery ama Gallis Bakery waan imaaday anigoo warwariyar igu jiro oo isweydiinaya wuxuu iga rabo markii aan cabaar fadhiyay ee aan bun iyo macmacaan meeshii ku cunay ee aan kolba saacada hoos ka eegayay waxaa si kadis ah ii soo dul istaagay nin cad wuxuu ii sheegay in la ii soo diray oo ii qaadayo hotel waan soo raacay waxaana raacnay gaari uu watay wuxuu i keenay hotelka magaalada London ee loo yaqaan Riverbank Parket oo ku yaala bartamaha London albaabka hotelka qof baa ii sii taagnay albaabka oo si diiran iigu soo dhaweeyay wuxuu ii kaxeeyay qol albaabkiisa ay ku xarqan tahay ama ay ku qoran tahay 322 qolka markii aan galay ayuu ii sheegay in aan si fiican u meerto kadibna markii aan ka soo baxay suulida ayaan waxaan ku dul arkay sariirta korkeeda suud madow shaati madow iyo kaba madow sidii la ii tilmaamay ayaana dharkii madow ku labistay cabaar ayaan daawaday London Eye oo toos ugu beegneed daaqada qolka aan ku jiray waa meel ka mid ah meelaha ugu bilicsan magaalada London dalxiisayaal badan ayaa jooga gobolku uu sii dhacay ana wali waxaan taagnaa daaqada garaac xoogan ayaa albaabkii la igu soo tumay hadana wala soo furay iska soo furay aniga oo yaaban ayuu igu yiri mudane waxa bilaabanaysa soo dhaweyntaadii waana soo raacay wuxuu fadhiisiyay miis mara madow lagu xardhay qaalaha dhammaan dhar madow ayay ku labisnaayeen miiska waxaa saarnaa khamri cas warqad sida saddex xagalka u taala oo ay ku qoran tahay welcome to the brotherhood ku soo dhawow walaaltinimada iyo sidoo kale waxaa taalay hees magaceedu yahay welcome home ku soo dhawow guriga markiiba gabar dhar madow xidhan ayaa masraxa soo fuushay waxaabay qaaday hees midhaheedu ay miiska saarnaayeen waxaa ka mid ahaa erayada heestaasi welcome to where time stand still, no one leave and no one will win. Moon is full, never seem to change. Just label mental dangerous. Dream the same thing every night. I will see our freedom in my side. No locked doors, no window back, nothing to make my brain seems scared. Keep him tight, it makes him well. He's getting better. It can't tell you love me be. Just leave me alone. Baris Media waxa uu idin soo bandhigayaa waxbarashada, siyaasadda, sirdoonka iyo arrimaha bulshada. haddaba ku xirnaa oo ha mogaanin Baris Media oo ahayd mid ilaa qastay misana cabsi igu abuurtay ayuu mid madow ii yimid isagoo madaxa hoos u furaarinaya ayuu igu yiri waa ku diyaar gaadhigii ku qaadi lahaay dabaqa hoose ee dhulka ayaa la igeeyay waxaana halkaa igu sugayay gaari kala jiidan markaan gudaha u galay waxaa kula kulmay saaxiibkay waan ku naxay oo waxaan ku idhi war waa maxay sidani isna muxuu igu warceliyay waadigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee ay codsigaaga laba jeer ay diideen Club of Roman iyo Scott Hamlet hadda waxaa timid fursad aad isku muujin karto haddii aad daacad ka noqoto hawlaha lagu igmanayo waxaadna heli xubin buuxdo durbaba gaarigu wuxuu ku socdaa xawaaro sare waxaan ka sii baxaynaa magaalada waxaan gaarnay dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabayso qaabka loo dhisay saaxiibkay gaarigii ayuu ku haray anna laba nin oo xidhan dhar madow oo ay qoortooda duran tahay saddex gees cas ayaa inta ay garbaha i qabteen ayay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qudha ee ka baxaya yahay shumac waxaa goobta madow soo fadhiyay nin darajadiisu tahay 33 oo magaciisa iigu sheegay Paul wuxuu i weydiiyay in aan ku qanacsanahay in aan ku soo biiro ururkooda dharka madow anna hore ayaan ka aqbalay habeenkii halkaas ayaa xaflad weyn la iigu sameeyay saddex habeen kadib anigoo sidii meeshii ugu jira ayuu Paul ii kaxeeyay qol madow deeta ilays ayaa lagu qabtay gidaarka waxaana la i tusay qariirad madow oo ay caddahay laba meel oo kaliya wuxuu i weydiiyay Paul labada meel ee cad miyaad garanaysaa waxaan ku idhi mid waa geeska Afrika tan kalena waa bariga dhexe Paul ayaa igu yiri waa dhulka Soomaalida
tan kalena waa shaam. wuxuu ii raaciyey in qariiradan la sameeyey shirkii Berlin ka dhacay sanadii 1884. waxaa kale oo ii sheegay arrin aad argagax iigu beeray, kaasi oo ahay Paul wuxuu yidhi shirkaas waxaa fadhiyey kii samada ka soo dhacay. markuu arkay in aanan fahmin ayuu iigu macneeyey, idinku shaydaan ayaad u taqaanaan. wuxuu noo sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaamba ay yihiin labada nuur ee u baahan in lala dagaalamo si qorshaheenu u fulo. fadlan la soco qaybta kale. inta aan intaas ka gaarayna waxaan ila leenahay oon inkaga tegay Baris Media waxa uu idiin soo bandhigayaa waxbarashada, siyaasadda, sirdoonka iyo arrimaha bulshada. haddaba ku xirnaa oo ha mogaanin Baris Media.